afartii cashee lasoo dhaafay xarunta safaaradda soomaaliya ee ku leedahay dalka uganda waxaa kusoo qulqulayay danjirayaasha dalalka aynu saaxiibada nahay kuwaas oo saxiixayay buugga tacsida geeridii ku timid allaha u naxariistay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed cali samatar xogayaasha koowaad iyo labaad ee xarunta safaaradda soomaaliya ee dalka uganda mudane cali isaaq ibraahim cali buudha iyo mudane cali qadar ayaa waxay sheegeen in saxiixa buugga tacsida geeridii ku timid madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed cali samatar ay kasoo qayb galeen dad isugu jira ganacsato iyo xildhibaano hore marka laga yimaado danjirayaasha dalalka caalamka ee soomaaliya saaxiibka la ah ay tacsi qaran lagu muujinayo geeridii kasoo wareegatay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka soomaaliya marxuum allah u naxariistay jenaraal maxamed cali samatar oo ku geeriyooday 19 bishan dalka maraykanka magaalada Virginia oo 25 bishan lagu aasay magaalo madaxda dalka Soomaaliya sida aad aragtaan idinkuna aad saaka oo marqaati ka ahaydeen waxa halkaan ugu soo booqday safiirada dalalka saaxiibada la ah dalka Soomaaliya walow qaarkood badan ay jid ku soo jiraan oo ay email noo soo direen ay leeyihiin waa imaanayaan nala dhararsanin waxaa jiro dad badan oo ah bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee dalka Uganda degan oo iyagu laftirkooda noo yimid oo tacsidaas naga codsaday inaan gaarsiino ehelkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogaan waxaana leenahay ilaahay qabrigiisii ha u waasiciyo Soomaaliyana dhibka iyo shidada Allah ka saaro cilmi cismaan faarax boodhari raadiyaha iyo telefishinka qaranka Kampala.